asalaamu calaykum waraxmat ullaahi wabarakaatu. walaalayaal, ilaahay khayr idin siiya meel kastaad joogtaan. waxaan idiin soo gudbinayaa insha allah ducooyinka, adkaarta, tasbiixda iyo waxyaalaha qofku isku ilaaliyo kuwa ugu madaxsan ee ugu muhiimsan. mid walbaba hal dikri ayaan ka soo qaadanaynaa insha allah. ducooyinka iyo dikriga istikfaarta kuwa ugu sarreeya ayaan idiin soo gudbinayaa insha allahu tacaala. waxaana filayaa ilaahay idinkiis in maalintaada iyo saacadahaadaba waqtigaada dhammaan ay kuu noqdaan kuwa aad faraxsan tahay. waxaad rabtina uu ilaahay ku siiyo, shaydaankan ilaahay uu kaa fogeeyo. adkaartan iyo ducooyinkan shayaadiinta waa buufiyaan, waana kaa durkinayaan insha allah. dikriga ilaahay lagu xuso kan ugu weyn ee ugu sarreeya waa kee? waxaa weeye laa ilaaha ila allahu waxdahu laa shariika lah, lahu lmulku walahu alxamdu wahuwa calaa kulli shayin qadiir. ducadana waxaa ugu sarraysa oo ugu qiimo badan waxaa weeye rasuulka ilaahay inuusan ka tegi jirin calayhi salaatu wasalaam, rabbanaa aatinaa fi ddunyaa xasanatan wa fi laakhirati xasanatan waqinaa cadaaba annaar. istikfaartana midda ugu sarraysa ee koowaadi waxaa weeye allaahuma anta rabbii laa ilaaha illaa ant khalaqtanii wa ana cabduk وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت أعوذ بك من شر ما صنعت أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. تصبيحنا waxaa ugu sarraysa waxa weeye oo ah jawharada tasbiixda subxaana allahi wabixamdih cadada khalqih waridaa nafsih wazinata carshih wamidaada kalimaatih. markaad doonaysid niyadaadu inay kuu degto oo habba aad noqotid shayga keliya aad ku ducaysanaysid ama aad dhahaysid afkaada ka soo baxaya ha noqdo laa xawla walaa quwata ilaa billaahi alcaliyi alcadiim. haddaad doonaysid sharka shayaadiinta kuwooda jinka iyo kuwooda insigaaba inuu ilaahay ku garab dhaafiyo oo ilaahay kaa difaaco, isku xafid oo isku ilaali oo difaac ka dhigo bismi illaahi aladii laa yaduru maca ismihi shay-un fi lardi walaa fi asamaa wa huwa asamiicu alcaliim. waxyaalaha laysku ilaaliya midka ugu fiican oo koobaad, dhibaata hadday ku haysato oo aad faraj doonaysid iyo meel aad uga baxdid, dhibaatadaas ducadan u akhriso, rabbi waa kaa saarayaa, faraj khayr qabunu ku siinayaa. waxaana weeye kelmadan laa ilaaha ilaa ant subxaanaka innii kuntu min aldaalimiin. waa 7 qodob oo muhiima: qaybtii tasbiixda, qaybtii dikriga, qaybtii ducada iyo qaybtii istikfaarta, qaybtii ilaalada iyo qaybtii deganaanshaha, qaybtii dhibaato faydka. haddaad niyeysatid inaad arrintan iyo qodobadan muhiimkaa faafisid insha allahu tacaala khayr niyeyso. markaad faafisid inuu ilaahay sabab oga dhigaa laga yaabaa inuu ilaahay kaa faydo kaa qaado dhibaatooyinka adduunya iyo kuwa aakhiraba. waxaanaad xasuusataa oo weligaa aadan hilmaamin inaad khayr ka samaysid oo aadan yaraysan walow mid yarba ha ahaadee, waayo adigu garan maysid wanaagga jannada ku gelinaya midka uu yahay.